عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وولاشني بالكعسوني له كسر ديوالة channel كيجا مرة والبقلب فرن إن شاء الله هذا كل عصب تاع channel كيجا هاي لاوين الله يجريس شير جريس كومنت جانا هوسي وساقرت إن شاء الله سبسكرايب كنا بام كاسيسو ما أنت هذا بقى ما حاجة نسوي فريسية ما حاجة وحي سوي فريسية برنامج آل حيص بدن ولا له نقال يا أي حاجة نيوسويان أنا طبعا نيجلا قيب قاتين برنامج هذا برنامج ما أنت وحي وكسب سيء هاي ما فيديو كليب كان ما أنت وحي وكسب سيء هاي ما دام إنه نهاي دد أقام له أو وحصا وذا برتي أو جامعة سودا مي دلنتينا ما أنت أديدا كنا لا إمك صاق علي ما هاي نو قبصنا نهاي وحقبض لا تعبان كرو أنه مرك عليه مكان جامعة دي أما كولج كانوا دمينه وهو أرضينا إن المحن كله أما الدولة شقينا أما الدش شيء وشقينا محا إنه قصة صار لنا هاي وحقبض إنه ينو قونية سواش واتاسي هذا بقى محرجين يعني قلنا إن تكون راح يستان دقيسي ولا لهين إن شاء الله إن شعير بدنا أتستان أدبردكم هالسنتين هذا نيجان صوّد قبنا فكر كينا كومنتي قاعد يقول هاي كرتان سوشيال ميديا إن شاء الله ودي يسوف لو قرأي كرتان أدبردكم هالسنتين سؤال عاوة إن دحتها لبا وحاي تهاي مدام إن هاي دنيرتي هذا وضعك أصاق عضي إن سؤال شيء دمرك وحوي محاي إنه وقف صنعنا وحقبض لتعبان كرو كقف البريجي سوان دقي سنة أنا جنا كي إن شاء الله وين سوى دقي سنة نادي لها كذا يا قف بلابة ديار وي حويا سؤال مهمة صح ودي صاحبتي وانا سلامية أدي أصحاب آد حقوق فعلا وانا سلامية ميل قصة دافع دمي كنوشين انت هممتي انت ما انت قف كستا وقتي وطا إن شاء الله حرجيني إنه فرحة دي عافمات كو هايستو آمين إن شاء الله انت هن هيستن الله وسيها ديو آمين علينا وكينا وحويا سؤال شيء اللي ودي سو حويا ما دام إنه وحبرني أدير يعني دلكيني maxaynu wax ugu qaban lahayn samaha إن سؤال شو صح وصلت عسو حنا ألو سؤال حوارا ما دام أن هاي دد وحصابرت أو وضع أقنيانا أن هاي مده كانوا إن دد با محن كره هاي أنا وحبر لأن سمان تجرتها لما أنت وحبا لنا برا والدين وإنه صوّد طبعا سو ما تقرن كبعد ما كانوا وحبر شدي لما ينوح إنه عرنا مين الدولة شقنا موقف شيء إنه شقينا ما فهمتي مركا محن إنه بي سؤال شن لا إنه قبصلنا أنا وحقبل لطابن كرو maxaynu dhulkeena wax soo saar laana beeraheena u qodannahay wadamada inuu caradino sabab keenta sax wadankeena aynu amaanta qofkii wax bartay wax jirtay inuu kalsooni ku haysanin haddii xaga beeraha tahay haddii ama bilix tahay ama dhan kasta wax qabad wadankeena ah hadduu yahay wala waxa weeyaan waxa in hortaagan waxa weeye maanta boqolaal wiilal ama gabdho ah alla hadaayo baa wax bartay haddana aan awoodin in ay maxay ahayd wadankii wax qabsadaan maanta wadankii dhaqaalihiisii manihiin dawladda ilaahay bayna aqoonsan oo binaadam aqoonsigiisa waxbay nooma tarayo walow haddana la iskaga baahan yahay duniyada jaan qaada loo baahan yahay waxa weeyaan dad weli la aqoonsan bayna nahay hiboy sida wadagsoonahay waxa weeyaan dhaqaalaha inagu filan in soo gala in haysana waa wax inagu tabcaano aynu soo saarano intii inagu aynu soo saarana waxay tahay inuu qof walba qofkii ehelkiisa uu geliyo ay ama shaqadii ama wallahi xataa beerihii la qodayay waxay noqdeen inuu weji iyo magac la isku geliyo sax waxa weeyaan marka wadankii waxa wax looga qabanaynin waxa jira wiil amaanta aan waxba haysanin oo dhalinyaro ah oo waqtigu saamixin balse laakiin aqoontii leh sax aqoontii dadkeena ma eegayaan in hebel ma tahay laandheera ma tahay waxaan qofkii way niyad jabinayaan horta lambar 1 waxaan niyad jabka iyo wax qabad la'aan ka helnaa waxa weeyaan waa madaxdeena iyo dadka inaga sareeyaanba wixii aynu qabanayeen gacanta noogu hayaan صح dadkan ay wadankan aan xaranayna waxay ugu kalifayaan waa moraal maanta ilmaha yar adugu waad garasha ilmaha yar wax dhiganaya shaqo abuuris baa la siinaya niyada si loogu dhiso uu dhiiranaan keeno maskaxdiisa uga shaqaysiiyo welibana yacni lacag waa lagu siinayaa dhaqaale si loo dareensiiyo xoogiisa muruqiisa maalkiisuba inay wax u taraan nuurama culinta waan gartay marka micnaha khasab maaha qofkii inuu lacag ku siiyo uu yacni maxaa haytay ku laakiin wax walba waxa ka muhiimsan waxaan aynu wada qabsano laakiin haddii wala marka sax
marka inagu dhalinyar ahaan haddii ay dhacdo inaynu gacmaha isqabsano ma kula tahay inaan waxnu soo saar samayn karno waan samayn karnaa haa dhalinyaradu dhan iska dhaafo toban qof baa hadday gacmaha isqabsadaan hormuud noqon karaa wasan aaminsanahay anigu haddii niyad saafi iyo qalbi xaaran iyo gacmo la isku dhiibo صح والله hormuud keeni karaa waan gartay wala keeni kara xal wallah waayo dadaal xataa cabas ku gaaraadaan waa u dhaafaa ما سنة ولا خضراء ما سنة dunida aad ka saban inuu baa soo dhisa qaaliye maanta wuu ordina وارون بين معهن أيوة يا كحي جاي خضراء waxaan ku yiri hiway ها ولا علو kulli waa runo de khadra wax badan bay noo sheegto exactly jira صح haddii aan isku dayo aan aniguna yaraayo صح ولا علو horta in aynu la qabto oo aynu qabsano haddaynu ama dhalinyarada aynu nahay ama dad wax bartay aynu nahay oo dadkii dee dalka usoo kacay aynu nahay صح sababta aynu u qabsan kari laanahay ama aynu waxqabad la taaban karo aynu u qaban kari laanahay waxa weeyaan laba midba وان قرتن mid waxa weeyaan walaal xagga maaragtay dhallinyaradeenna صح ayay ka jirtaa midina waxay ka jirtaa xagga madaxdeenna وان قرتن ama wixii ama dalkeennaba guud ahaanba وان قرتن waa taa xagga dhallinyarada ka jirtee dhallinyaradeenna horta waxaa maadaama oo ay yihiin haddaan dad wax bartay haddana inta badan uma cadda macnihii iyagu cidda ay yihiin iyo macnihii hiba ahaan ama macnihii waxa kartida ay leeyihiin وان قرتن soo ma garan عادي عاد oo marka hore waa inaad taqaanaa cidda aad tahay صح waa inaad maxaad isweydiisaa marka ugu horeysa maxaad qaban kartaa maxaad tahay adigu kumaa tahay oo macnihii waa inay dee ku cadaato nolosha waa inuu ku cadaado hadafka ka leedahay waa inay ku cadaato وان قرتن marka horena in caalamkan iyo waxaan la bedelaa waxay ka bilaabantaa qofka oo naftiisa bedela naftaada bedeshid already waad bedeli karaysaa caalamkan waad bedeli karaysaa like qof aan naftiisa bedeli karin caalamka ma bedeli karo marka inaga bulshadeenu ama dee dhallinyaradeenu ma wada oran karo waa wada sidaas laakiin say u badan yihiin iyaga laftigooda waxaa ku yar macasamirkaa ku yar soo ma garan صح oo dunida kale dee haddaad eegtid xataa dee inagu waxaynu wada doonaynaa dee wax kasta waxaynu doonaynaa wax la yidhahdo macalmaaliku taajir baynu doonaynaa wax intaasoo sanadood oo dhan lasoo qabanayay ama shaqo lasoo qabanayay inaynu sakin ku helno ama inaynu sikan ku halno horumar soo socday 10 sano 10 kun oo sano عادي intaasoo sano soo socday baad doonaysaa inaad ku gaadhid ma garanaysaa عادي sanad iyo wax kale soo ma garan عادي عاد taasi waa dhibaatada xagga dhallinyarada ka jirta صح marka horta samirkaa kugu yar dhallinyarada laftigooda xaggan kale way badan oo wax baratay oo haddana aan magaranaysaa aan bulshadiina horumarin waxaan ku iri iyagina is horumarin laakiin taas iyaga oo haddana aqoontii iyo xirfadihiiba leh ayaa waxaa jira caqabado hor imanaya عادي عاد عادي عاد caqabadahaas oo kaga imanaya deegaankii kaga imanaya dawladdii kaga imanaya soo ma garan وان قرتن marka waxaa jirta waynu ognahay oo soomaalideena mid baa inagu badan صح shayga la yidhahdo qabyaalada la yidhahdo aad iyo aad inagu badan عادي عاد عادي عاد maanta adigu oo hibe ah oo xirfad leh صح oo laga yaabo weliba aad honor hadda duntidaa dhahay fikirkaaguna uu fikir shaqaynaya yahay ها haddaad maanta shirkad tagtid ama aad meel tagtid waxaa laga yaaba marka ugu horeysa waxa lagu oranayaa ma tihid waxaad soo baratay macnihii yaad garanaysaa weeyaan shaqada كي marka waxay noqonaysaa waji wixii iyagaana bedeli kara wixii horena iyagaa meesha ka saari kara qabyaalada iyo waxaana waxa meesha ka saari kara
dhalinyarada ka saari karta moogtahay صح laba shay bay badan qabyaalada waa dhalinyarada iyo waxa la yiraahdo dalka oo horumar gaaray aadiyaan hadduu dalku horumar gaaro kalena oo isku filaanshiya la wada gaarana dee ma jirto qabyaalad ma jirto wadamada isku filaanshiya gaadhay qabyaalada xad ma jirto kama jirto aadiyaan soo ma garan aadiyaan marka waxa weeyaan dhalinyarada oo iyagu isbahaysto oo macnihii waxaan ka wadaa gacmaha isqabsada aadiyaan bay ay ku gaari karaan wax qabadkaas horumar ku gaari karaan waxa la yiraahdaa waxaan la yiraahdaa maartay waxaan Soomaalida waxa kuma markaa gacmaha jooga oo Soomaalida aadiyaan maahan marka maanta haddii aad iminka aad fikrada soo kordhisaan oo iminka haddii 10kii qof ee dhalinyaro ahayba fikir la yimaadaan tusaale kale iminka haddii doonayaan shirkad xataa asaasan way asaasti karay haddii fikir haddii macnihii ay iyagu ay isku raacaan waxyaabo badan bay soo kordhin karaan soo ma garan oo qabyaalada meesha ka saaraysa aadiyaan waa qodobo aad u fiican baad ka dhawaajiseen adiga iyo khadrab walaal insha Allah malaa'igtahay in sharafto aad baad ugu mahadsantiin sida quruxda ladiga qayb qaadateen aad baan iga mahad celinay waan rajaynayaa inaanu wax qabad ballaaran sameysano haddaynu nahay bulshada Soomaaliyeed maadaama nahay dad adduunyada dadku ay ka wada horumareen oo dhaafeen waxaan jecelnahay anaguna inaan iyaga dhaafno intii karaankeenana aynu maxaan ku radaa dadaalno su'aashu waxay ku leedahay walaal maadaama aynu nahay dhalinyar aqoon leh oo wax bartay maxaynu u samaysan laanahay wax qabada oo la taaban karo maadaama markaan jaamacadda dhamayno ama college aynu dhamayno aynu ku yaacayno inaan dawlad ama maxaan ku radaa qof aan u shaqeyno maxaan inagu ay nafteenu leen hoos wax soo saar la taaban karaa inuu samaysan laanahay walaal horta dhow waxyaabo bajiran moogtahay صح ta koowaad horta waxa weeye dee wax kasta la sameynayo waxa ka koowaad inaad horta wixii investment-ka haysid moogtahay aadiyaan ama kharashkii waxaad ku qaban lahayd aadiyaan fikir soo wanaagsan haddaad haysid oona haynin haddaanad kharash haynin ma shaqeynayo kharash haynin dee ku suurageli maayo haya weliba siiba dee anaga marka la eego anaga iyo idinku waan kala duwanahay maadaama idinku dee waddan dee dayn layd siinayo oo waxa laydin qabanayaa joogtaan idinku waxaad qabsan kartaan صح laakiin marka anaga nala eego iminka matalan aniga kula hadlay haddaan kaaga warran waxaa jiray anigu institution ID-kii waan jaamacadda dhameeyey moogtaan صح marka waxaa dhacday mashruuc qolo la dhaho next economy oo fikradaha qofka fikradu keenayay waxay dhaheen ganacsi madii abuurana moogta صح qof kasta oo fikir baad keenaysaa fikirkaaga waad barsan karanaysaa su'aalaha lagaa weydiinayaa systemka soo shaqeynayaad businesskaaga waad sheegaysaa صح haddii laguu qanco waxaan ugu dhahay markii hore 15 baa la siinayaa qof kasta oo fikirkiisa lagu qanco fikirkiisa la jeclaado waan gartay dee markaan fikradii keenay fikir ka wanaagsanaa barsan garaynay ee everything aan qornay waxaa la yimid kadamba aniga waxba lama hayee $500 iska qaato oo iska taganiyo marka dee weliba haddaad hargeysa ka warhaysid $500 qolka moogtahay waxaa jira waxa kirada wax ka horeeya oo diibaaj oo markaad qolkii kiraysanay sidoo kale ee lagaa qaadayo waan gartay lacagtaas waxay dhici karta in lacag dhowr kun oo lagaa qaado diibaajiyo oo aanad haynba waa run markaad awood intaa lagma yeelanaysid marka ma waxaan oran karnaa dhalinyartii awood uma laha inay maxaan ku raadayay ay sameeyaan wax qabad maadaama ayna haysan dee maalkii adduunyo intaasaan oran karnaa markaa طبعا ma dhici kartaa inay dhalinyarta Soomaaliyeed iska daayaan maxaan ku radaa fikrada kale aaminsan yihiin oo iyagu intay gacmaha isqabsadaan maxaan ku radaa wax qabad la taaban karo ay soo saartaan intay Soomaalida waxay tiraa gacmooda jirba wax ku gooyaane aan maxaan ku radaa gacmaha isqabsano ma laga yaabaa in wax soo saaran karno والله طبعا مرتد واحد حرنتي لبض أما جروب سيسكو آمن المكتب وان قرتاي هذه جروب آمنسن أو سكوت هذا أو هم وضله وضدوني إني وكذا بيان وارون ويسمين كلام أونلاين ويسمين كلام هذه ما مسنا بوحاي تاي حدي أنا بوحبة بحيسن بس ده محسوس عران كريا ما قرتاي إن هذه
maadaama la leeyahay bal haddii aynu gacmaha isqabsano talo meel ma gaari karnaa oo ma dhaafi karnaa dadka shisheeye ama maxaan ku raadaay Yurubadaas ama ummadaas kale aniga su'aasha waxaan oran lahaa haddii aan helay garabkayga ma fahantay walaal Cabdiraxmaan aad baad u mahadsantahay sida quruxda badan ee igala qayb qaadatay barnaamijka aad baan kaaga mahadcelinayaa insha Allah ku soo qaban doonaa walaal maadaama ay dhalinyartii Soomaaliyeed ay yihiin dad wax wada barteen dhammaantoodna ay jaamacada ka soo wada baxeen oo waalid ku soo tabcayay mar aliya markaaynu wax barashadii dhamayno aynu ordayno ama dawlad ama inaanu qof kale u shaqeyno inagu wax ma qabsan karnaa mise ma qabsan karno maxaanu helanahay wax qabad la taaban karo inuu hal qof xataa uu soo saaro wixii fikirkaaga haddaad jecesho ku dhiiban kartaa walaal mid baan aaminsanay walaal sax walaalo mid waa mid xagga waalidka ama dadkii hore wuxuu qabsaday inaga horeeyo oo ay ahayd inay dhalinyartooda ganacsi u sameeyaan waan gartay oo marka ganacsigii uu sameeyo kii u dhawaaya aan waxba aqoon ka doorbida kii wax bartay ee jaamacadda intaasoo sano dhiganay waan gartay midda labaad baa waxaa tahay teamwork wax la yidhaahdo jira haddii maanta aan waxbarashadeedu wax ku waayo waa inaan abaabulaa team aan wada shaqayn karno oo haddii keligaan wax qabsan kari lahayd team aan wax wada qabsano aad fikir wada aaminsan tihiin waa anigu asaastaa aad iyo fikir wada aaminsanay aad iyo kadib ma waayeyno qofna dhiirigeliya ama nagu idhaa dhalinyartaada is-abaabusho ee dee wanaagga iyo waxqabadka isku tabaabushaysay adiguna waxaad ku dartay صح لكن هذه ونن teamwork jirin oo aan wada shaqeyn iyo in la isla tashadaanay jirin waxa aanu uma maleynay heer la gaaray waan gartay marka dhalinyarteeni ma waxaan oran karnaa iyagu maskaxdoodii ma isticmaalayaan oo maxaan ku raadayay waxay eegayaan maxaan ku raadayay qaybihii ka horeeyay ama dadkii ka horeeyay waxa ay sameyn jireen bay sii tixraacayaan mise diyaar uma aha inay iyagu wax qabsadaan maadaama aynu leenahay beera maadaama aynu leenahay dhulal waaweyn oo waxnu ka soo saaran karno ma waxaynu leenahay dhalinyarteeni ama maxaan ku raadayay way iskala qabweyn ama way ka xaragoonayaan ama awood uma hayaan ama lacag ma hayaan midkee baynu ku fasari karnaa diyaar uma aha inay dhalinyartan wax qabsadaan anigaana markhaati kaaga taas oo had iyo jeer dhalinyarta ku dhex jira magaranaysaa sax qofku isagoon jaamacad dhameyn buu ku oranaya waddanka maxaa yaala waa isagoon jaamacad dhameyn ka ima markuu shahaadadii qaato jaamacaddii dhameeyo waa dhibaatadeedii leedahay mid kalena waan aaminsanahayo waxa micnaha loo tumayo waddanka ee qof walba u leeya waddanka waxba ma yaalaan waa bilaa camal aad iyo aad waddanka wax way yaalana camalna u yaalaa laakiin qofkaana shaqadu doonaya helin magaranaysaa waa run qofkaan shaqadu doonaya helin qofku wuxuu ku hamin yahay inuu kursi iyo computertuu fadhiisto moogta marka dhalinyarteeni Soomaaliyeed anigu aan ka mid ahay adigu aad ka mid tahay kaliyaata waxaynu rabnaa inaynu xafiis fadhiisano oo maxaan ku raadayay aynu iska nafisno qaybtaasuun ku eekaane ma rabna inaan rafaadno oo maxaan ku raadayay daalno miya ma doonayna inaan dhaqdhaqaaq sameyno ama shaqadii naga soo horbaxda baynu qabano si waan gartay laakiin kaliya waxaan doonaynaa yaraantii shaqadan ku hamin jirnay raaxada ahayd ee nafiska ahayd iyo computerka ahayd aad iyo aad inaan weynaanteeni helno haddii taa aynu weyno micnaheedu waxaynu micnaysanayn waddanku bilaa camali waan gartay hadda kula hadlaya wixii aan yaraantii ku hamin jiray kama shaqeeyo shaqo kale ka shaqeeya xataa jaamacadda wixii aan ka qanjibiyo kama shaqeeyo qof walbaaba walaal yaraanta wax ku hamiyaa satisfy baanan ku hay walaal shaqadaas ما شاء الله qof walbaaba waxbuu yaraantiis ku hamiyaa ama waxbuu jecel yahay laakiin waxa uu helaya ama qadarkii Ilaahay u qoray uu ka duwan yahay ku isagu mooday ma garatay dhalinyarteeni Soomaaliyeedna anigu maxaan ku raadayay waxaan oran karaa hiba ahaan ma doonayno inaynu qabano oo wax soo saar aynu ka soo sameysano wadankeeni ee waxaynu eegaynaa waxay dad kala sameysteen ay hore ugu tabceen rabnaa inaynu xafiisiyo iyo meelo sare ka wada shaqeyno de taasi wixii lagu gaari lahaa waxa weey inaynu base ka soo bilowno si aynu u tagno xagga ugu sareysa marka adiga iyo anigu waxaan nahay labada qof ee caawa barnaamijka ugu dambeeya soona xidhaya maxaynu ku sii dhiirigelinaa oo aynu ku sii dhaafnaa dhalinyarta Soomaaliyeed bal inaan maxaan ku raadayay ay tusaale ka dhigtaan waxaynu ku dhiirigelinaa in badan aan wada fadhiisanayna anigu aan kala hadlay oo aan sidii waa fikir fiican oo haddii micnaha lagu dhaqaaqo wax ku ool noqonayo horumar lagu gaadhaya
maanta haddii iba anigoo cabdixakiin qalila intaan iskriim xidhxidho iskriim sooma garanaysa iskoolka lagu xidhxidho haddii intaan xidhxidho aan galaaseerka guriga dhex yaalla intaan ku rito aan idhaa ka waran waxba laigama iibsanayo dee ma shaqaynaysa walaa waa inaad suuqa geysaad soo iibsaa laakiin markaan galaaseerka dibadda u saaro ee aan dadka u sheego inaan iskriim hayo lama waayiyo qof iga iibsadaa been maaha taas ujeedadeedu waxay tahay micnaha waa waxan aynu soo baranay ee aynu inta kusoo tabcaynay inaan guriga kula noqon oo dhan waddanka waxa ma yaalaan waa fikir fiican bal inagu marka hore shahaadadeena iyo waxaynu baranay dibadda aynu usoo saarno dadkeena waaweyn iyo inta inooga aqoonta hoona aynu idhaano waxanaan bartay ee maxaa tale igu kordhinaysaa iyo halkan wax ka bilaaba adayga waa yaragsane maasha allah aad iyo aad ana waxaan leeyahay dadkii inaga horreeya in aynu wax weydiino inaguna qof walbow حتى ككاير هذو كائر بدين لا تشو عادي أنا فكر ولا عبد الحكيم وكدواتي سيد مقلسين آد بنو قرع سنة هاي وفكر آد وقالية ولا عبد الحكيم أو آد بنو كوسو دوينيا آد بدو ما هتصنتها شرفت الذي لقب قاتل برنامج عبد الحكيم فكرة وكاني وحي هاي فكرة آد وقالية يا ولا هي كسي هريبة ما شاء الله وحنا لا هاي waxaad haydeen dad qaaliya agteeda qaalibaad ku tihiin dadka Soomaaliyeed oo dhan aad baad ugu mahadsantahay sharafta la digala qayb qaatay barnaamijka inta barnaamijyada xigana intaan soo duubi doono ama maxaan kula isku maqli doono ama isku arki doono mar labaad mar saddexaad mar afraad waxaan iga sii tagayaa sida iyo amaana Allah insha Allah aragti dambe